بسم الله والتعافى والسلام يا مرك هore إن الله وإنا إليه راجعون waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khaliif Galeyd oo booqasho shakhsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga si guud xukuumad ahaan waa la socday joogitaankiisa kadib xaaladda caafimaad ku soo kordhay saddexdii cisho ugu dambeysay xanuunkiisu waa la socnay anaga wasaaradda caafimaad ahaan si sahlan buu markii hore ku bilaabay kadib maanta kowdii iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa laga tacsiyeynaa way marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday professorku uu yahay COVID-19 idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida Professor Cali Khaliif Galeyd saddexdii cisho u dambeysay shakhsiyan waan booqanayay runtii waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad waxa ugu horeyn historygiisa macaan buu marka hore lahaa kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa xalay habeenimo ayay hawadu naqasku marar kamida oo yara qabtay saaka aroortii baan tiim caafimaad oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xogtiisa nala soo wadaagay tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa hadday tahay fuluuryadii hadday tahay dawooyinkii hadday tahay baaritaanadii kokombaynta dhiigga laga soo qaado lagu diyaarinayay mashiinada laboratoryga labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culays ka bilowday waxaan ka codsanay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaadno aan geyno hosbitaalka cudurdaar uu yidhi halkan aniga waxay adii qaban karaysaan inaad igula dadaashaan run ahaantiina xaaladiisa caafimaad markaa wuu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan maana ka qabin inuu sida dhibka yar ay xaaladiisa culays u geliso kadib baaritaanadii aan sameynaynay hadday dhiig tahay hadday macaan tahay hadday covid tahay intaba waan samaynay covid baan ka baarnay kolley PCR maashinada caalamka wax lagu wada baaro dadka ku baarinin baan ku baarnay natiijadii late bay soo baxday caawa ahaan bay soo baxday maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu 100% report lagu kalsoonaan karo inuu noqdo waxaa noo caddaatay inuu cudurka COVID-19 uu positive yahay macnaheedu ma aha 100% xanuunka dilay waa COVID-19 kaliya laakiin inuu xanuunka hayay mid kamida uu yahay COVID-19 waayo markii hore maxaa late markii dambe xitaa hypertensive yani dhiiggiisa waxaa kor u yarkaasana maadaama oo markii horena shaki xoog badan ka qabnay waxaa markii dambe na caawiyay mashiinka resultiga soo saaray ayaa noo cadaysay waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hotelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga dabcan waxaad kaloo sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay kamid ahaayeen dadka ay xanuunadaasi qabana marka covid uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaar marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hotelkii uu deganaa un lagu dabiibayay walaal marka guud aan sawir kooban ka siiyo nidaamka COVID-19 dalka Ethiopia uu uga howlgelayo hadda guideline-ka u dambeeya WHO iyo dalka Ethiopia laga shaqeeyay waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ah oo guriga oo yani care ku heli karayo iyada oo loo samaynayo accesskii inuu telephone heli karayo inuu xaaladiisa ka warbixin karayo inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanaya la heli karayo marka guud sawirka yani qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaalada haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday waxaa la qaatay home care basic adeega inuu helo qofku intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karaya 4 saac ay ugu dambeysay bay annaga ayna tustay inuu complication badan u sameynayo intaa waxaa ka dambeeyey kolley dadkii familkii iyo ehelkiiba way la joogeen waanu soo booqanay waanu aragnay waxaan isla qaadanay inaanu geyno hosbitaalka kadib waxaa jirta dhismayaal waaweyn oo dawli ah oo protocolkiisa iyo maadaama ninkan ra'iisul wasaare waddan Soomaaliya meel ku habboon
annagoo privacygiisa kor u qaaday nasiib darro intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysay waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hosbitaal ahaan oo kale waxaan keennay waxyaabihii necessariga ahaa kadib hosbitaalka inta aanaan gaarsiinin bay ku timid qadartii. maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka profesorka hayay uu ahaa COVID-19 maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay ehel asxaab iyo mas-uuliyiinba isugu jiray mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi COVID-19 lagu arkay ilaa iyo hadda? walaal waxaan sameynay si guud dadka ehelkeen u dhowaa kolley si way la tacaamulayeen iyagii oo xidhan maskigii waxyaabihii filconditionka ah annaguna sidaas oo kale annagii protectionkii waxyaabihii muhiimka ahaa annagoo isticmaalina ayaan soo boqorin hadda waxa ugu muhiimsan annaga ay tahay inaan sameyn waxa weeyaan in case haddii qof kamida dadka ka agdhow calaamadaha isku arko inaan baaritaankii u sameyno kadibna haddii uu xanuunkii jiro aan manage garayna haddii